مسؤوليinta sare ee ururka haweenka qaranka ee NAW ayaa maanta deeqa kala duwan waxa ay gaarsiiyeen masaajidada ku yaala degmada Ceelafweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag. Faafaynta warkaasi waxa noo haya wariyahayaga Saylici. deeqdani kala duwan ee maanta ay guddoonsadeen imaamiyada masaajidda kala duwan ee magaalada Ceelafweyn ayaa isugu jirtay kutubta Quraanka Kariimka ah, kaafmo iyo sidoo kale gogol loogu talagalay in lagu tukado masaajidaasi. waxaana munaasabadii deeqdani lagu wareejinayay ka soo qayb galay Sheekh Saciid Cabdullaahi Diiriye xildhibaan Saciid Xirsi Cabaase oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Ceelafweyn, gudoomiyaha ururka NAW ee haweenka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomisada ururka NAW ee gobolada bari ee Soomaaliland Marwadalays Shira Faarax. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay Marwaaniisan Nuur Cigaal iyo Marwadalays Shira Faarax oo tilmaamay meesha ay deeqdani ka soo gaadhay iyo sidoo kale cidda soo dhiibtay. waxa halkan aan taagnay masaajid kamid ah masaajidada Ceelafweyn oo la guddoonsiinayo roogag iyo kitaabo iyo waxyaabo kale oo fara badan kuwaas oo ay soo shaqaysay Dalays Shira Faarax oo ka soo ururisay dad reer Soomaaliland ah. waxay ugu tala gashay inay masaajidadooda iyo degmadoodaba ay kor ugu qaado. waxa kale oo ay Dalays Shida raashin ay ugu tala gashay dad roobabkii waxyeeleeyeen oo ay laba tuulo ugu tala gashay oo ay soo bixisay samafalka Soomaaliland ay soo bixisay. insha Allah hadii Ilaahay qabalo waanu sidaa waa ku soo wada doonaa hadii Ilaahay aamana daayo. kutubta waxaan ugu tala galay masaajidada miyi iyo magaalada in loo qaybiyo kutubta iyo kafanta iyo raashinka gorniya bixin la geeyay. waxaan noo soo dhiibay xafiiska samafalka madaxtooyada Amno Maxamuud Duuriye. roogagana aniga keenay iyo dadaan ka wakiilahay ayaa soo iibinay, laakiin kutubta iyo kafanta iyo raashinada waxaan noo soo dhiibay xafiiska samafalka madaxtooyada Amno Maxamuud. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay imaamka masaajidka Al-Sunna Sheekh Saciid Cabdullaahi Diiriye oo ka mahad celiyay deeqdani la soo gaarsiiyay iyo sidoo kale ciddii u soo dhiibtay. waxaanu ka guddoonay Dalays Shire masaajidkan Sunna leh magaciisa gogoshiisii iyo ilaa kutub gaaraysa 100 kitaab. sidoo kale xildhibaan Saciid Xirsi Cabaase oo ku tilmaamay hablaha ururka NAW inay kaalin mug iyo miisaan leh ay kaga jiraan kaalmaha hore hal doorka ururnimo ee dalka iyo sidoo kale bulshada inteeda kale iyo walibana waxtarka ballaaran ee ay ka fulinayaan wadanka Soomaaliland. waxaana uu tilmaamay inay dhammaanba haweenka Soomaaliland ay ku soo hirtaan ururka NAW ee haweenka qaranka Soomaaliland. dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ugu dambeyntii ka mahad celiyay macallimiinta malcaamadaha iyo sidoo kale imaamiyada kale ee masaajidda magaalada Ceelafweyn. وعبد الرحمن إسماعيل سيلعي تلفزيون قرنك Somaliland Ceelafweyn.